alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaa inoogu dembeeyey xadiiska 115 macnaha xadiiska waa dul marnay oo waa laqbaynay fawaa'idda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mida munaafiqiintu inay dhaleecayn jireen mu'miniinta oo camal khayr ay la yimaadaan ay ku dhaleecayn jireen marka dadka mu'miniinta wax wanaagsan ay la yimaadeen in lagu dhaleeceeyaa ama niyadooda la tuhmaa oo la yidhaahdaa qasad wanaagsan ugama jeedaan inay akhlaaqda iyo dhaqamada munaafiqiinta ka mid tahay baa laga qaadanaya yacnii labada qolona ma badbaadin qoladii waxa badan bixisay iyo qoladii waxa yar bixisay qolo walba waa dhaleeciyeen sida ku soo aroortay riwaayaad kaleo la soo wariyey oo aayadda sabab nusuul u ah cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu keenay xoolo aad u fara badan oo dahab fara badan ayuu keenay ou sadaq ahaan u bixinaayo dabeedna markay ka yaabeen bay waxay yidhaahdeen ilaahay dartii ugama jeedee istusnimuu uga jeedaa waa muraa'i bay yidhahdeen waa itihaam niyadiisa ay tuhmaysanayaan oo ay leeyihiin qasad wanaagsan ugama jeedee wuxuu uga jeedaa istusnimo nin kalaa yimi oo saxaabada ka mida oo abu caqiil al ansaari la odhan jiray wuxuu ahaa nin markaa aan waxba xoolo fiican aan haysan muruqiisa ku shaqo taga ayuu ahaa dabeedna wuu soo shaqaystay markuu soo shaqaysto wuxuu soo helay 2 saac labadii saac buu kala badhay midna reerkiisu u reebay midna sadaqadii buu keenay markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay hani buu ka yahay kan saaciisa kiina waa dhaleecayeen aayaddu sidaas iyadaa bay ku soo degtay marka waxaa laga qaadanayaa xaqdarro in muuminiinta lagu dhaleeceeyaa niyadooda la tuhmaa ilaahay dartii ugama jeedin la yidhaahdaa inay ka mid tahay akhlaaqda iyo dhaqamada munaafiqiinta in laga taxadirana inay tahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya sadaqadda in lagu dadaalo oo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sadaqadda amray ama aayadda sadaqadduba ay soo degtay sadaqadda boorinaysaa saxaabada qaarkood waxay samayn jireen inay xamaalnimo tagaan oo dushooda wax ku qaadaan oo ku xamaalaan si lacagta ay ugu shaqaystaan xamaalnimadaas wax ka mida ay u sadaqadaystaan marka waxaa laga qaadanayaa hayntaadu waa yar tahay loogama hadho sadaqaddana fadligeed iyo ajarkeedu waa weyn yahay marka in la raadiyo oo la ysku dayo sadaqadda in la baxsado ayaa markaa fiican xadiiska 116 asaabic cashar baabkana waa xadiiska 17aade can saciid bni cabdilcasiis can rabiicata bni yaziid can abi idriis alkhawlaaniyi can abi darin jundub bni junaada radia allaahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiskan sheekhu markaa caadadiisa isaga inay ahayn wuxuu soo taxay sanadkii qayb ka mida ayuu keenay oo soo taxay wuxuu ka bilaabay saciid ibnu cabdilcasiis oo muftigii dimashq ahaa iyo fiqiheedii wuxuuna u keenay xadiiska marka uu dhammeeyo ayuu wuxuu keenayaa hadal ku saabsan inuu markaa saciid yidhi kaana abu idriisa idaa xaddasa bi hada alxadiisi jasa calaa rukbatayhi marka si saciidkan loo garto sanadka inuu ku jiray ayuu markaa sanadkii saciidka uga bilaabay ilaa aakhirka xadiiskay ku imanaysaa markuu marfuuca dhammeeyo inuu saciid hadalkan yidhi marka haddaan khalfiye laga haysan waxaa la is odhan karaa saciidkani waa kuma sidaasuu markaa saciid ibnu cabdilcasiis attanuukhi ugu bilaabay isna wuxuu ka warinayaa rabiicata bni yaziid buu ka warinayaa oo isaguna faqiih ahaa oo fuqahadii marka waxa weeye yacni markaa shaam ka mid ahaa abu idriis alkhawlaani buu isaguna ka sii warinayaa oo caa'idullah la odhan jiray oo isaguna taabiciintii ka mid ahaa yacni markaa sheegana abi darin alghifaari ayuu xadiiska ka warinayaa jundub ibnu junaada ayaa la yidhaha jundub yacni markaa daalka in la godo iyo in la kordhigo laba wajaa iskaga sugan can inabiyi sala allahu aleyh wasalam abidar wuxuu ka warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ka warinayaa fii ma rawaa can illaahi tabaaraka wa tacaala kii uu markaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey allah ka soo wariyey ayuu abidarna nebiga ka sii warinaya calayhi salaatu wasalaam tabaaraka ilaahay baa barakadiisa iyo khayrkiisa fara batay wa tacaala allah baa korreeye annahu qaal inuu allah yidhi
yaa cibaadii addoommadaydow waa xadiisulqudsi oo xadiiska hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu allah ka warinaayo xadiisulqudsi baa la yidhaahdaa. xadiisulqudsi ayaa la yidhaahdaa. marka xadiiskana waa noocaas. annahu qaala yaa cibaadii, allah wuxuu yidhi addoommadaydiiow innii anigu xaramtu adulma waxaan xaaraantinimeeyey xadgudubka iyo dulmiga calaa nafsii, daatadayda naftayda ayaan ka xaaraantinimeeyey, daatadaydaan ka xarrimay. yacnii anaa iska xarrimo iska xaaraantinimeeyey inaan dulmi sameeyo. wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu, waxaanan ka yeelay dulmiga dhexdiinna mid xaaraanaan ka dhigay oo idinkana waa idinka xaaraantinimeeyey. falaa tadaalamuu ay falaa tatadaalamuu ha isdulmiina, bimacnaa qaarkiinba qaarka kale yaanu dulmiin. waa min baabi xadfi ixda taa'ayn, labadii taa'ood baa mid ka mida la xadfay. yaa cibaadii addoommadaydow, allah baa yidhi kullukum dhammaantiin daallun waa lumay oo waa lunsan yahay, ilaa man hadaytuhu midaan hanuuniyo mooyaane intiinna kale waa lunsan tihiin. oo bimacnaa shareecada kuma qumanidin, ama waxa weeye markaa aqoon markaa diinka uma lihidin, aqoon diinka uma lihidin mooyaane midaan markaa dee garansiiyo baro. fastahduunii, i hanuun weydiista, ahdikum waan idin hanuuninaya haddaa ii hanuun weydiisataani. yaa cibaadii addoommadaydiioo kullukum dhammaantiin jaa'icun waa gaajaysantihiin ilaa man atcamtuhu midaan quudiyo mooyaane oo aan cunto siiyo mooyaane intiinna kale waa gaajaysantihiin. fastatcimuunii, iga cunto dalboo cunto i weydiista. ucimkum, waa idin quudinaya haddaa cunto i weydiisataan. yaa cibaadii addoommadaydow kullukum dhammaantiin caarin waa qaawantihiin ilaa man kasawtuhu midaan wax huwiye mooyaane, midaan dhar siiyo aan anigu arri tire mooyaane intiinna kale waa yacni qaawantihiin. fastaqsuunii aksukum, fastaqsuunii, iga markaa dhar dalboo dhar i weydiista. aksukum, waa idin huwinayaa, dhar baan idin siinayaa haddii ay ii weydiisataane. yaa cibaadii addoommadaydow innakum idinku tukhti'uuna waa gefaysaan bileyli, habeenka gudihiisa waa gefaysaan, wannahaari iyo maalinta gudaheedaba waa gefaysaan. wa ana akfiru adunuuba jamiica, anna dembiyadaan dhaafaa jamiican xaalay dhammaantood yihiin. ama tawkiidba u laqbee, jamiican dhammaantood waa dhaafaa. tukhti'uuna iyo takhta'uuna labadaba waa loo dabdiyey. takhta'uuna haddii la yidhaahdo oo labadaba la kordhigo ta'da iyo ta'da, waa khati'a yakhta'u ayay noqonaysaa. khati'a yakhta'u khit'an, oo iyadu waa iska caddaho waa dembiga loo badrheedhaa la yidhaahdaa khati'a yakhta'u khit'an. sida laakiin markaa kale marka loo dabdiyo waa siday inoogu dabdisan tahaye tukhti'uuna, oo ta'da la godo da'dana la hoos dhigo, waxay noqonaysaa marka akhta'a yukhti'u inay tahy. waxaana macruuf ahayd oo caan ahayd akhta'a in loo isticmaalo markaan qaladka loo badrheedhin ee kama arrinkaasi u dhaco, xaaladda noocaasa akhta'a yacni markaa u qaalib ahayd oo loo yaqaanay. haddana waxaa loo jeedaa dembi loo badrheedhaa loo jeedaa, dembi loo badrheedhay ayaa loo jeedaa. marka akhta'a yukhti'u fa huwa mukhti'. qaalibku ha ahaado dembiga aan loo badrheedhin inuu ahaadee, laakiin marmar baa loo isticmaalaa si qaliil ah dembi loo badrheedhay in akhta'a la yidhaahdo. saas aawadeed baa imaamu nawowi odhanayaa waa luqo qaliilo ahoo luqadii qaliilka ahayd bay ku socotaa. oo akhta'a in loo isticmaalo dembiga loo badrheedhay yacni noocaas ayay markaa noqonaysaayo waa luqa qaliila, waa luqa yar, tii qaalibka ahayd ma aha. qaalibku sida kale ayuu marka ahaa. luqadaasna waa luqa saxiixa. qur'aanka laftiisana dee waaba ku timiyo inna qatlahum kaana khita'an kabiira, khata'anna waa la akhriyey. 3 qira'a ku sugan marka eraygee, yacni waxa weeye khit'an waa sida macruufka noo ahay aynu naqaani. khata'anna waa la akhriyey. khata'an marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa
waa ismu masdarkii akhta'a weeye akhta'a yukhti'u ikhtaa'an marka khata'an marka la yidhahdo ismu masdar bay noqonaysa waa ismu masdaroo u sugnaaday akhta'a u sugnaaday marka khata'antaa qiraa'ada kale sabcigaa ku timi qur'aannimaa loo akhriyey oo quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyey waxay noqonaysaa maaddadan inay tahay akhta'a marka waa luqadii qaliilada ahayd ee uu sheegaayey imaamu nawowi uu sheegay calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa dembi loo badheedhaa loo jeedaa macna ahaan laga tilmaamayaa hadda innakum idinku tukhti'uuna waa gafaysaan bileyli habeenka gudihiisaa gafaysaan bacdu waa darfiyo wannahaari iyo maalinta gudaheeda ayaa gafaysaan wa ana akfiru dunuuba jamiica anna dembiyadaan dhaafaa waad xaalayn kartaana waxaad gafaysaan walxaal ana anigu akfiru aan dhaafaayo addunuuba dembiyada aan dhaafaayo jamiican dhammaantood aan dhaafayo faastakfiruunii yacnii dembidhaaf i weydiista akfir lakum waan idin dembi dhaafayaa haddaad dembidhaaf i weydiisataani yaa cibaadii addoommadaydiiow allah baa odhanaaya innakum idinku lan tabluguu gaadhi maysaan darrii lurkayga gaadhi maysaan inaa i lurtaan ama i dhibaataysaan ma gaadhi kartaan fatadurruunii dabeedna ay dhibtaan yacnii si ay i dhibtaan yacni dhibtayda ma gaadhaysaan si ay i dhibtaan ima dhibi kartaan walan tabluguu ma gaadhaysaan nafcii waxtarkayga fatanfacuunii dabeedna ay anfacdaan yacnii dhib iyo markaa dheeftoonna yacni ima tari kartaan waxna ima yeeli kartaan yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awwalakum haddii kiinna idinku horreeyey wa aakhirakum iyo kiinna idinku dambeeyey wa insakum iyo kiinna insigaa iyo wa jinnakum kiinna jinkaa kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum ay calaa taqwaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu taqwo badan taqwadiisa qaar ku sugan ay noqdaan calaa taqwaa atqaa taqwaa baad qadari min baabi xadfi almudaaf calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu taqwada badan taqwadaa qaar ku sugan hadday wada noqdaan yani taqwadaa taqwo la mida qaar ku sugan haddaad wada noqotaan dhammaantiin ninkaasoo waaxidin keliyoo minkum idinka idinka mida maa zaada daalika kaasi ma kordhiyeen fii mulkii mulkigayga kuma dareenoo kuma kordhiyeen shay-an waxba kuma kordhiyeen shay yar kuma kordhiyeen walow shaygaasi aad ba ha u yaraado yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum haddii kiinnii ugu horreeyey wa aakhirakum iyo kiinna ugu dambeeya wa insakum iyo kiinna insiga ah ee aadamiga ah wa jinnakum iyo kiinna jinka ah kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin ay calaa fujuuri afjari qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu fujuurka iyo faasiqnimada iyo xumaanta iyo kufriga badan faajirnimadiisa qaar ku sugan hadday noqdaan ninkaasoo waaxidin keli ah maa naqasa daalika min mulkii shay'a taasi waxba uma dhinteen mulkigayga shaynaba uma dhinteen walow shaygaasi haba yaraadeen yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awwalakum haddii kiinnii ugu horreeyey iyo wa aakhirakum kiinna ugu dambeeye wa insakum iyo kiinna insigaa iyo wa jinnakum kiinna jinka ah qaamuu ay istaagi lahaayeen fii saciidin waaxidin bannaan keliya ay istaagi lahaayeen fasa'aluunii ay weydiisan lahaayeen danahooda fa actaytu aan siin lahaa kulla insaanin qof kastaba mas'alatahu su'aashiisiyo wuxuu i weydiisanayo o iga baryaayo aan siin lahaa maa naqasa daalika mimaa cindii maa naqasa daalika kaasi ma nuqsaamiyeen mimaa cindii waxa agtayda ku sugan kama nuqsaamiyeen ilaa kamaa yanqusu almikhyatu nuqsaamin la mida mooyaane nuqsaaminta irbaddu ay nuqsaamiso yacnii naqsan ilaa ka naqsi almikhyati wamaada leha waa masdariya nuqsaamin la mida nuqsaamintay irbaddu nuqsaamisa mooyaane idaa udkhila marka la geliyo albaxra badda markaa la geliyo intay badda u dhinto ka dhicisa badda oo ay ka nuqsaamiso biyihii badda ay soo qaadi karto irbaddaas qadarkaa in la eg mooyaane wax kale kama nuqsaamisin
kulligood haddii addoommada insigoodi iyo jinkoodi iyo koodii ugu horreeyey kooda ugu dambeeyey dhammaantood ay wada baryi lahaayeen mid waliba wax alle wuxuu doonaayo u weydiisan lahaa mid walba wuxuu markaa allah weydiistayna allah siin lahaa yaa mulkiga ilaahay wax u dhinmay lahaa ma jiro waxa allah hayo iyo khasaa'intiisa waxba kama nuqsaamiyeen oo waxba uma dhinmeen waxa irbaddaasi ka dhiciso badda marka sidaa loo geliyo qadarkaasoo kale mooyaane wax kaloo ay ka nuqsaamin lahayd ma jirto intanna taqriib laynagu fahansiinayaa looga jeeda irbad bad la geliyey maxay biyihii badda ka nuqsaaminaysaa ka dhicinaysa qadar intee leg bay soo qaadaysa dayadunbaa soo qoyaysa sooma yaa ila guda waxay ku qaaddo ma lehe iyadunbaa qoyaysa marka dee waxaa la odhan karaa waxba kama nuqsaamin badiyo waxay ka dhicisay ma jirto yaa cibaadii addoommadaydiyow innamaa hiya acmaalukum uxsiiha lakum innamaa hiya camalladu acmaalukum waa camalladiinnii uxsiiha lakum xaalaan idiin koobaayo bacdu ahlicilmi waxay u celiyeen acmaashay u celiyeen oo khayr iyo sharba ah oo ayay markaa u celiyeen markaa hiyada bacdu ahlicilmina waxay ka dhigeen damiirulqisa inay tahay haddii damiirulqisa loo fasiro innamaa hiya yacni qisadu waxay tahay acmaalukum camalladiinnu uxsiiha lakum waa idiin koobayaa oo waa idin ururinayaa waa idin xafidayaa ixsaagu waa shayga in markaa tiro lagu koobo ayaa la yidhaahdaa ixsaaga xaggee laga soo qaatay shayga marka tiro lagu koobaayo in ixsaa la yidhaahdo waxaa laga soo qaatay min alxasa oo carabtu waxay ahayd ummadan wax qorin haalibkeedu iyo majhuuratigeedu innaa ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ummad ummiyaanu nahay wax ma qorno waxna ma xisaabinno waxaa loo jeeda min xaysu alghaalib wa ilaa afraad wax qoraa waa jirin marka waxay samayn jireen waxay doonayaan inay tiriyaan inay quruuraxa ku tirsadaan quruuraxa ayay soo qaadi jireen dabeedna quruuraxaasaa lagu tirin jiray halkaasaa laga soo qaatay ixsaaga wa cadduha bilxasa waa in quruuraxa lagu tiriyo yaa waatuu shaacirkii yidhi walasta bilaksari minhum xasan wa inama alcizzatu lilkaasiri ma tihid mid ka quruurux badan markaa isu quruurux tirsataan adigu kama fara badnid buu u jeedaa kama quruurux badnid haddaa markaa isaga adiguna reerkiinna aad ku tiriso quruurux isaguna reerkooda quruuruxu ku tiriyo adigu kama quruurux badnid buuhi wa inama alcizzatu lilkaasiri cizzada iyode waxay u sugnaatay xooggu yacni cidda markaa tirada badan ee kasrada u saaxiibka ah yaa ayaa markaysagaa dee yacni markaa halabada markaa yeelan kara oo alkasratu taqribu ashajaaca waata la yidhaahdo yacni faruhu geesinimada waa ka haalib noqdaan marka uxsiiha lakum waa idiin koobayaa oo waa idiin tirinayaabaa macnuhu u dhacaya uma uwafiikum waa idiin dhammaystirayaa iyaaha ay jazaa'aha yacni jazaa'aha abaalmarinteeda camalladaas yacni ayaan markaa abaalmarinteeda idiin dhammaystiraya ay jazaa'a acmaalikum oo iyaaha waxaa looga jeedaa camalladii marka jazaa oo mudaafa marka loo qadarana waxay noqonaysaa camallada abaalmarintoodaan idiin dhammaystiraya uma uwafiikum dabeed waa idiin wafaynaya waa idiin dhammaystirayaa iyaaha ay jazaa'aha jazaa'a acmaalikum camalladiinna abaalmarintoodaan idiin dhammaystiraya faman wajada ku kastoo hela khayran khayr hela oo bimacnaa wax khayra la yimaada falyaxmad illaah allah ha mahadiyo oo rabbi ha u mahadnaqo waman wajada ku kastoo hela hayra daalika waxaan markaa khayr ahayn hela falaa yaluumanna ilaa nafsah yacnii shar hadduu helo oo markaa sharda uu la yimi falaa yaluumanna yaanu canaanan ilaa nafsahu naftiisa mooye cid kale yaanu canaanan falaa yaluumanna yaanu canaanan oo yaanu canaanan ilaa nafsahu naftiisa mooyaane cid kale yaanu canaanan qaala saciid ibnu cabdilcasiis attanuukhi waxa uu yidhi kaana abuu idriis alkhawlaani wuxuu ahaan jiray idaa xaddasa bi hada alxadiisi markuu ku warramo xadiiskan jasa calaa rukbatayh waa jilba joogsan jiroo labadiisa ruug buu ku jilba joogsan jiray oo isagoo jilba joog markaa ugu taagan ayuu xadiiska sheegi jiray markuu xadiiskan sheegaayo
waa looga soo naqliyey isagu marka abu idriis toos wax uga warin maayo rabiicata bna yaziid ayaa u dhaxeeya marka laakiin waa looga sheegay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa ruwiina can alimaami axmed ibni xambalin raximahullah waxaa naloo soo wariyey sida fiican waa in loo dabdiyo wa ruwiina waawga la shado muqayaru siiqana laga dhigo yacni sidaas ayaa fiican wa rawaynaa baa kollay ii qora nushadan hayo laakiin nusakha wa ruwiina qoraya ayaa fiican wa ruwiina waxaa naloo soo wariyey can alimaami axmed bni xambalin axmed ibni xambal ahaaday raximahu llahu qaala inuu yidhi laysa liahli shaami reer shaam uma sugna xadiisun ashrafu min hada alxadiis xadiis ka sharaf badan xadiiskan reer shaam uma sugno reer shaam ma soo warin xadiiska sanadkiisu waa shaami weeye abudarna waa degay shaam waa degay marka xadiiskani waa xadiisulqudsi waa xadiis dheer waxaana ku sugan yaa cibaadii allah inuu ku celcelinaayo 10 goor ayuu mar walba allah odhanayaa yaa cibaadii yaa cibaadii yaa cibaadii yaa cibaadii waxaanuu xadiisku sheegayaa ilaahay dulmiga inuu iska xarrimay oo ilaahay waxba ma dulmiyo ina allaha laa yadlimu annaasa shay'a ilaahay dadka waxba kama dulmiyo wuxuu ilaahay dulmiyaa ma jiro dulmiga haddaba rabbi iska xarrimay waa maxay dulmiga waxay culammadu ku tacriifiyaan dulmigu inuu yahay wadcu shayi fii hayri mawdicih shay aan maxalkiisii la dhigin inuu markaa dulmigu noqonayo ama naqsul xaqi inuu yahay xaqa in la nuqsaamiyo dulmigu inuu yahay ayay markaa ku fasireen bacdu ahlicilmi oo yidhi waa jiraan atasarruf fi mulki alghayr mulki cid kale leedahay in lagu tasarrufaa la yidhaahdaa dulmi qaar baa sidaa u itlaaqay qaarna qayd bay sii raaciyeen oo yacni loogu tasarrufo yacni si aan markaa waxa weeye sax ahayn yacni loogu tasarrufo qaar baa qaydkaa ku daray markii ishkaalla ku soo arooreen calaa kulli xaal ilaahay cid ma dulmiyo wuxuu ku sifaysan yahay cadli dulmina waa ka nasahan yahay habay yaraatee wax dulmiya lama yimaado waa mid cadli u saaxiiba allah oo cidi dembi aynay galabsan dhalada ka saari maayo khayray shaqaysatayna ka lumin maayo labada midna allah ma samaynayo dembi aanu kasban in cid korka uu ka saaro oo uu ku ciqaabo ma dhacayso mustaxiil bay ka tahay waa mid markaa iska xarrimay oo xaaraan bay ka tahay innii xaramtu adulma calaa nafsi waxaa laga qaadanaya allah inuu wax iska xarrimaa inay bannaanto allah cid wax ka xaaraantinimaysaa ma jirto cid kale oo allah wax ka xarrimtaa ma jirto caqli waxba kama xaaraantinimaynayo qiyaasan cala almakhluuqna waxba looga xaaraantinimaayo qiyaasan cala almakhluuqna wax looga xarrimayaa ma jiro marka allah wax waa iska xarrimaa wax waa iska xaaraantinimeeyaa waxna waa isku waajibiyaa waxna waa isku waajibiyaa taasina wax dhibi kuma sugna in sidaas marka waxa weeye yacni la yidhaahdo allah wax waa isku waajibiyaa waxna waa iska xarrimaa kataba rabbukum cala nafsihi araxma siduu raxmadda isugu waajibiyey ayuu dulmigana isaga xarrimay wuxuu kaloo yacni xadiisku sheegayaa inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam allah ka soo wariyey inuu allah yidhi dulmigii idinkana waa idinka xarrimay dhexdiinna ay hays dulmiina wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu marka dulmigu waa xaaraan anwaacda dulmiga o dhan baa soo gelaysa hadday tahay waxa weeye dadka xuquuqdooda in lagu xadgudbo oo tacaddi lala yimaado hadday tahay dulmigii weynaanshaha badnaa ee shirkiga ahaa hadday tahay waxa weeye dulmiga macaasida ah oo dembiyada ah yacni markaa in macaasi iyo dembiye lala yimaado kullu daalika waa shay muxarama aan bannaanayn waxaa kaloo allah uu yidhi addoomadaydii oo dhammaan waa lunsantihiin mid aan hanuuniyo mooyaane dalaalka waxaa loo isticmaalaa laba siyoodoo cilmiga in haafil laga yaho aan la garanayn dalaal waa la yidhahdaa xaqii in laga baydhsan yahay oo aan markaa waxa weeye lagu qumanaynna yacni waa la yidhaahdaa dalaal waa la yidhahdaa marka labada mid walba dee ilaahay baa ruuxa ka hanuuniya hidaayada allah baa bixiya hadday tahay xaggii cilmiga iyo hadday tahay xaggii markaa dariiqa xaqa in la qaado mid walba oo la sulansiiyo la waafajiyo ruuxa yacni khayrka la waafajiyo oo wanaagga lagu hanuuniyo dalaalka oo looga jeedo tafaasiisha shareecada inaan loo aqoon lahayn waxay culammada qaar ku fasireen
wawajadaka daallan fahadaa ya dalaalkaa culamada qaar waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo tafaasiir kalea ku jirtee culamada qaar waxay ku fasireen bimacnaa tafaasiisha iyo axkaamta shareecada ayaanan mufasalan u garanaynin maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan yacni waxa weeye axkaamta kitaabku sheegaayo si mufasala umaad garanayn looma jeedo allah maad garanayn lagama tilmaamaayo waayo nebigu allah waa yaqaanay allahna waa caabudi jiray tawxiidna waa la iman jiray cibaadada keligii ayuu caabudi jiray allahoo keliya ayuu allahoo keliyuu caabudi jiray cid lama caabudi jirin marnaba shirki lama iman ya ilaahay baa dhowray marnaba shirki lama iman laakiin dalaalka waxaa laga tilmaamayaa inaad haafil ka ahayd yacni axkaamta shareecada iyo tafaasiisha shareecada inaad markaa haafil ka ahayd baa laga tilmaamaya dee cilmiga allah baa bixiya macnaha labaad oo ku saabsan yacni dariiqa xaqaana allah baa cid waafajiya laga tilmaamaya oo cid kastoo hanuunsan dee allah baa hanuuniyey alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wama kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah waatay ahlu jannu odhanayaan markay jannada galaan yacni maanu hanuunneen haddii aan allahna hanuunin lahayn waxaannu ku hanuunnay hanuuninta allahna hanuuniyey baa macnuhu dhacay dhammaantii waa gaajaysantii midaan quudiye mooyaane marka allah barya marka baryada ilaahay in lagu dadaalo oo waxyaalaha wanaagsan allah laga baryo hadday hanuunka tahay hadday quudka tahay iyo cuntadii arsaaqda hadday tahay markaa dharka yacni dhammaan in allah laga baryo allah la ysku xidho oo baryada ilaahay lala yimaadaa laga qaadanaya addoommadaydiiow waa dembaabaysaan habeen iyo maalinba gudahooda waa dembaabaysaan anna dembiyadoo dhan baan dhaafaa ee dembidhaaf weydiista waa idiin dhaafaya hadda ay weydiisataan istikfaarka in la badsadaa fiican oo istikfaarka yacni lagu dadaalo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi innii la astakfiru fi lyowmi 100 mara ya 100 goor baan ilahay dembidhaaf weydiistaa ya nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood astakfir allah wa atuubu ilayhi majlisu fadhiistay bay saxaabadu waxay u tirin jireen 100 goor inuu yidhi ya a'immada qaarkood waxaa la weydiiyey inuu ruuxu tasbiixda farabadsado iyo inuu istikfaarta badsado teebaa labada u fiican dabeedna wuxuu ku jawaabay a'immadii hore imaam ka mida la weydiinaya wuxuu ku jawaabay maradu uskaga ahi maydhitaankay uga baahi badan tahay in udgoon iyo cadar la mariyo waxay uga baahi badan tahay in la maydho yacni wuxuu tilmaamayaa tasbiixdu waxay ka dhigan tahay udgoonkii marada lagu buufinayo la marinayo kalay ka dhigan tahay istikfaarkuna maydhistii buu ka dhigan yahay haddii maro uskaga dee udgoon aad ku shubto dee waxa weeye uskagii waa ka muuqdaa waa jirtaa dee in caraf wanaagsan ah uu ka soo baxayo laakiin dee muuqeedii waxaa la arkaa dee inay markaa uskag tahay ayaa la arkaayo dee cadarku uskagii ka tegsiin maayo saas aawoodee istikfaarka in la farabadsadaa laga qaadanaya aad loogu dadaalo addoommadaydiiow ima dhibi kartaan si ay dhibtaan imana anfici kartaan si ay anfacdaan marka dararkii waa la nafiyey waxaa dhacday iidaaga in la sugay yu'diini ibnu aadam yasubu addahra wa ana addahru ay muqallibu dahri marka iidaaga waxaa la yidhaahdaa waa waxa iska khafiifka ah baa la yidhaahdaa yacni masalan haddii ruux ku caayo dee dhib weyn kuma gaadhsiin xoogaa waad dhibsanaysaa cayda u ka caayayo laakiin haddaanaad isku shiddayn dee waxay ku yeelaysaa ma jirto ya waxay ku yeelaysaa ma jirto qofka markaysaga cayda la imanayaanay dee ku sii xunta ninbaa markaysaga nin kale maagay oo yacni qiso ay ahlucilmiga qaarkood soo naqliyeen qaarna ayba u nisbeeyaan marka waxa weeye ilaa saxaabi bay u tiiriyaan hadalkaa in lagu yidhi ma uusaa ku jawaabin wuxuu uhi waxaan ku caayayaa cay yadkhulu macaka alqabra cay qabriga kula gashaan kugu caayaya buui markaasuu macaka yadkhulu laa maci aday qabriga kula gelaysaa aniga ila geli maysa buui waayo camalkaagii aday qabriga kula gelaysaaye aniga ila geli maysa buui marka iidaagii waa caydaas oo kale weeye iidaag waxaa khafiifkaa loo isticmaalaa marka dararkii waa la nafiyey laakiin iidaagii waa la sugay iidaaga la sugayaana waxaa laga tilmaamayaa waa in allah la caayo ama la canjarafeeyo ama la dhaleeceeyo ama shariig iyo ubad iyo loo nisbeeyo waxyaalaha kufriyaadka ah taasi nooc iidaa ayaa markaa ku jirta
oo marka waxa weeye dee yacni marka allah uu diidaayo oo marka waxa weeye uu karaahiyaysanayo laakiin dararkii waa la nafiyey wax dararoo allah la gaadhsiin karaa ma jiro addoommadaydi oo dhammaantiin haddii insigiinna iyo jinkiinna kulligiin haddaa ku wada sugnaataan ka idinku taqwada badan qalbigiisoo miidhan haddaa ku wada sugnaataan taqwadiis oo bimacnaa kulligiin haddaa wada yeelan lahaydeen qalbiga nebi maxamed oo kale xagga taqwada mulkigayga waxba kumaydaan siyaadiseen shaynaba habay ii yaraatee haddii kulligiin aad ku wada sugnaan lahaydeen ka idinku gaalnimada iyo fujuurka iyo xumaanta badan qalbigiisa oo miidhan wada yeelan lahaydeen qalbiga ibliis yaa afjaru rajul wuxuu noqonayaa ibliis atqaa rajulna wuxuu noqonayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka qalbiga ibliis oo miidhan haddaa wada yeelan lahaydeen xagga faajirnimada iyo kufriga iyo gaalnimada mulkigayga shaynaba kama nuqsaamisan waxay u dhimi lahayd ma jirto marka addoommadu inay wanaagga iyo khayrka la yimaadaan iyagay anfacaysaaye ilaahay wax u tari maayaan wanaag haddaynu la nimaadno waa wax innaga ina anfacaya nafcigaasi waa nafci qaasir ah wax tar ilaahay u gudbaya ma aha haddii aynu xumaan la nimaadnona innaga ina dhibaysaa ilaahay waxba yeeli mayno addoomadaydii oo dhammaantiin haddaa waxaad doonaysaan ay wada weydiisataan oo iga wada baridaan oo kulligiin aan wada siiyo waxaad doonaysaan waxaan hayo waxba kama nuqsaamiseen yacni sida ilaahay mulkigiisu waasicu yahay khasnadiisu u ballaadhan yihiin ayay caddaynaysa marka ilaa kamaa yanqusu lmikhyadu mikhyadka waxaa loo jeedaa waa irbadda ayaa loo jeeda waa litaqriib baa taas laynoogu matay fahamkaa laynagu soo dhoweynay addoommadaydiiow camalladiinnii un weeye yacni markaa arrinku ama qisadu waxay tahay camalladiinnaan idin koobayaa ama waxaa idinka dhacayaa khayr iyo sharba waa camalladiinnii anna waa idin koobayaa camalladaas waa idin ururinayaa dabeedna waa idinka abaalmarinayaa suma uwafiikum iyaaha abaalmarinta weynna aakhiray dhacaysaa laakiin wax ka mida abaalmarinta waa dhacdaa adduunyadaba in lagu abaalmariyo laakiin abaalmarinta weyni waxay dhacaysaa aakhiro kii khayr markaa waxa weye la kulmaa oo khayr sameeyaa allah ha mahadiyo qofka oo wax kastoo taaca oo ka dhaca inuu ilaahay ugu shukri naqo weeye lain shakartum laaziidannakum haddaad shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa markaad khayr samayso haddaad khayrkii ku shukrido dee khayr kale inuu ilaahay ku waafajiyo ayuu kugu kordhinayaa marka allah waa in loo mahadnaqaa kii waxa weeye markaa waxaan khayr ahayn la yimaadaana naftiisa mooye cid kale yaanu canaanan laakiin intuu nool yahay waxa u furan toobadkeen baa u furan baabun fi lxasi cala alisdiyaadi min alkhayri fi awaakhir alcumuur baabun ay hada baabun kani baab weeye baabkaasoo filxasi yacni ku sugan boorrinta la boorrinaayo o la tirtirsiyaayo cala alisdiyaadi in la kororsado min alkhayri khayrka la kororsado fii awaakhir alcumur cimriga dabayaaqadiisa in khayrarka la fara badsado in la boorriyo ayuu baabku ku saabsan yahy oo marka qofku dee da' uu noqdo waa inuu khayrka sii badsadaa iyadoo mar walba khayrka inuu badsado laga rabo ayaa hadda markuu da' noqdona dee ay ka sii xag jirtaa inuu markaa khayrka sii fara badsado qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi awalam nucammirkum miyaanaan idin cimri dheerayn maa yatadakkaru fiihi wakhti uu waantoobaayo man tadakkara kii waantoobay yacni wakhti uu ku waantoobi karo kii waantoobayey miyaanaan idinku cimri siin oo idin cimri dheerayn waa idin cimri dheeraynaa loo jeedaa ay cammarnaakum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar wa jaa'akum waxaa idin yimi annadiiru kii digaayaa idin yimi oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa idin yimi saa waa loo fasiray sidaas waa loo fasiray awjuhda kalena waa arki doonnaa marka wajaa'akum annadiir waxaa lagu cadfayaa awalam nucammirkum baa waxay tahay nafyu isbaatyo yacni haddii laba nafyi iska daba dhacaan hadalku musbat buu noqonayaa wax la sugay marka lamtii oo adaatu nafyin ah iyo hamsadii oo marka waxaa shibu nafyi iskaga sugan yahay oo macno nafyi isaga dhacaysa oo shabah ku leh ayaa kulmay marka macnuhu wuxuu u dhacaya cammarnaakum waa idin cimri dheerayne waa idin cimri siinay marka cammarnaakum taasaa lagu cadfayaa wajaa'akum annadiir min xaysu almacnaa laga qaadanayo cammarnaakum oo min xaysu almacnaa laga qaadanayo
ayaa lagu cadfaya wajaa'akum an-nadiir. qaala ibnu cabbaasin radia allahu canhuma, cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi walmuxaqiquuna iyo culammada muxaqiqiinta ee umuuraha taxqiijiyaa oo markaa hubsadaa adiladoodana u raadiyaa waxay yidhaahdeen macnihiisu wuxuu yahay qowlkan ilaahay macnihiisu wuxuu yahay awalam nucammirkum miyaanaan idin cimri siin oo idin cimri dheerayn 60 sana, yacnii 60 sano miyaanaan idin cimri siin. marka culammada qaarkood cimrigan yacni markaa dheeree lagu waantoobi kari lahaa waxay ku fasireen in 60 sano loo jeedo. wa yu'ayiduhu alxadiisu aladii sanadkuruhu in shaa allahu tacaala, waxa ayidayuu yidhi oo xoojinaya, waxaa odhanaya nawowi baa odhanaya, wa yu'ayiduhu waxaa xoojinaya qowlkaas alxadiisu aladii sanadkuruhu, xadiiskaynu sheegi doono in shaa allahu tacaala, hadduu ilaahay doono aynu sheegi doono. ma xadiiska inoo imanaya acdara allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa balaga 60 sana. wa qiila waxaa la yidhi macnaahu 18 sana. waxaa kaloo la yidhi macnihiisu waxa weeye 18 sano miyaanaan idin cimri siin, oo dee intuu qaan gaadhay baa markaysagaa sanawaad weliba u raaceen. wa qiila waxa la 40 sana. waxaa kaloo la yidhi 40 sanaa loo jeedaa. qaalahu alxasan waalkalbiy wa masruuq. taabiciinta qaarkood baa yidhi xasan albisriya ka mid yihiin, yacni masruuq ibn alajdac iyo kalbiya ka mid yihiin. wa nuqila can ibni cabbaasin ayda, cabdullahi ibni cabbaasna waa laga soo raro, saa waa laga sheegay. wa naqaluu waxay soo naqliyeen culammadu anna ahla almadiinati, in markaa waxa weeye madiine ehelkeedu waagii hore ee salafka kaanuu ay ahaan jireen idaa balaqa markuu gaadho axaduhum midkood 40 sana, 40 sano markuu gaadho tafaraqa lilcibaada, waxa kale waa dhigi jiray. tafaraqa wuxuu markaa u gacan bannaanaan jiray oo u faaruqi jiray oo yacni markaa shuqliga kale u joojin jiray lilcibaadati, cibaado ayuu markaa u gacan bannaanaan jiray oo u faaruqi jiray oo tafaruqu la iman jiray. yacni wuxuu isu faaruqin jiray inuu cibaado keliya qaabilo. oo culammada qaar waxay samayn jireen inta hore yacni waxa weeye waxay shaqaystaan iyo waxay talabulcilmi sameeyaan, yacni ashyaada noocaasa inay ku dadaalaan, markay 40 gaadhaanna waxa kaloo dhan inay dhigi jireen, dabeedna markaa ay cibaado ay qaabili jireen inta cimrigooda ka hadhay. suyuuti wuxuu ka mid ahaa culammadii mutaakhiriintu ka mid ahaa, wuxuu caadadiisu ahayd bay yidhaahdeen ilaa 40 jir markuu gaadhaayey yacni waxa weye wax dhigista iyo yacni markaa waxbarashada iyo yacni markaa wax dhigista mid walba waa samayn jiray. markuu 40 gaadhay tadriiskii waa joojiyey. xataa wuxuu sameeyey inuu wakhtigii intii ka harsanayd wuxuu u qaybiyey inuu cibaado ku jiro iyo inuu kitaab qorayo ayuu u qaybiyaa layidhi. wa qiila waxa la huwa albuluuq, yacni maa yatadakkaru fiihi waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen qaangaadhnimada. qofku hadduu mukallaf noqdo qaan gaadho dee cimrigu ku waantoobaa waa jiri lahaa, walow cimrigiisu yaanu dheeraanbe. oo qof kastoo dee qaangaadha oo dee waxa weeye qaangaadhnimo ku dhintay, xumaantii uu la yimi dee waxa weeye ku mutaysanaya in lagu ciqaabo. hadduu gaalnimo ku dhintona dee naar abadiyaa la kulmaysa. aniga cimri dheer layma siin dee odhan maayo, laakiin waa sii kala badan tahay uun awqaadda markaa qofka la siiye ee uu ku waantoobi kari lahaa unbaa ziyaado sii kale leh. wa qowluhu tacaala, hadalkiisa allah uu yidhi wajaa'akum annadiir, waxaa idin yimi annadiiru kii diga ayaa idin yimi, ay ilmundir. qaala ibnu cabbaasin, cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waljumhuuru iyo culammada badankooduba ay yidhaahdeen huwa nabiyu sala allahu alayh wasalam, waa nebiga. wa qiila waxaa la yidhi ashaybu waa cirada, ka digaya waa cirada, sidaana waa la yidhi. qaalahu cikrimatu, cikrimaasaa yidhi, wa ibnu cuyaynata, ibnu cuyayna yidhi, waghayruhumaa hayrkoodna waa yidhaahdeen, wallahu aclam. waxaa markaa kollay la soo wariyey cabdullahi ibnu cabbaas inuu ciradana markaa yidhi, oo kollay waxaa macruuf ahaa inuu cabdullaahi ibnu cabbaas laga sheegay inuu ku fasiray cirada, inuu ku fasiray. marka qowlkan hadda uu sheikhu u nisbeeyey kollay mashhuur ma aha, yacni markaa ibnu cabbaas hadalku u nisbeeyey hadal kollay caana ma aha in ibnu cabbaas nebiga ku fasiray, laakiin sida marka waxa weeye caankii waxay tahay waa inuu cirada ku fasiray. saas aawadeed bay baaxisiinta qaarkood waxay yidhaahdeen in ibnu cabbaas loo nisbeeyo inuu nebiga ku fasiray, annadiirka nebiga ku fasiray waa waham, sheikhu waa ismoodsiiyey, baa baaxisiinta qaarkood ay markaa yidhaahdeen. calaa kulli xaal labada weji waxa arjaxsan in lagu fasiro annadiir in looga jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam. sababtuna waxay tahay
mawdican la isku khilaafay mooyaane meelaha kale qur'aanka annadiir ku soo aroortay nebiga waa ugu timi maadaama nebiga ay ugu timi tafsiirka waxaa ugu fiican tafsiiru lqur'aan bilqur'aan in qur'aanka qur'aan lagu fasiro ayaa markaa ugu fiican culammada kale markay cirrada ku fasirayaan waxay leeyihiin cirradii qofka marka timihiisii caddaadeen dee waa calaamad marka waxa geeridiisii inay soo dhowaanayso oo intii hore uga dhow yahay oo marka waxa weeye dee waa kaannahu digis ay tahay loo digaayo laakiin aayadda in lagu fasira calaa kulli xaal ma noqonayso sida saxiixa noqon mayso wa ama axaadiista baabkan aynu ku soo aroorinayna miyaa axaadiista baabkan aynu ku keenayna miyaa xadiiska 117 falwalu xadiiska koowaad ee baabku can abi hurayrata radia allaahu canh bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal in nabigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi acdara allaahu ila imri'in akhara ajalahu xataa balaga 60 sana acdara allaahu ilaahay waa u cudurdaar dhammeeyey oo wax cudurdaara uma reebin ila imri'in qof akhara ajalahu uu dibdhigay ajashiisa goortuu dhimanaayo uu dibdhigoo cimriga u dheereeyey ilaahay wax cudurdaara uma reebin xataa balaga ilaa ruuxaasi uu gaadhay 60 sana 60 sana uu gaadhay rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen macnaahu lam yatruk lahu cudran macnihiisu wuxuu noqonayaa ilaahay cudurdaar uma reebin oo wax cudurdaara ugama tegin ee cudurdaar oo dhan waa yacnii u dhammeeyo waa ka suuliyey yacni wax cudurdaaroo loo reebay innaba ma jirto mar hadduu cimrigaa dheer noolaa waxaa loo jeedaa dee nadaara iyo digitaanno soo gaadhay digitaanno soo gaadho oo wax loo sheegay macnaahu lam yatruk lahu cudran wax cudurdaara ugama teginoo uma reebin idaa amhalahu hadduu u kaadiyo haadihi almuddata muddadan uu u kaadiyo 60 sana ah yuqaalu waxaa la yidhahdaa acdara arajulu ninkiibaa cudurdaarkii dhammeeyey idaa balaga alghaayata hadduu kama dambaysta gaadho filcudri cudurdaarka yacni sida markaa wax yacni qofkaasi ku cudurdaartoo dambe u hadhay innaba ma jiro marka acdara waxay noqonaysaa cudurdaarkii baa laga yacni markaa suuliyey cudurdaarkii baa laga kaxeeyey cudurdaarkii baa loo dhammeeyey wax cudurdaara u baaqiya ma jiro qofka xujadu waxay ugu qumaysaa marka hore ilaahay caqli inuu siiyey mar labaadkana digitaan inuu soo gaadhay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula rusulan mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul oo marka rasuul loo soo diro risaala soo gaadhay dee cudurdaar yeelan maayo uuna qaangaadh yahay caqli leeyahoo caaqilna yahay yacni wax cudurdaara ma yeelanayo iyadoo qofku hadduu qaangaadhaba digitaankaasina soo gaadhay caqlina uu leeyahay aanu cudurdaar lahayn ayaa haddana dadku waa sii kala daran yihiin oo qofka weliba cimri dheer noolaana dee wuxuu ku cudurdaarto ma helaayo walow cudurdaarkaasi yaanu ahaanba mid wax weyn u taraya oo bimacnaa cudurdaar weyn oo saa'iqaba yaanu noqone laakiin wuxuu qofku ku yara ictidaaro oo cudurdaar ka dhigto oo is yidhaahdo waxbaa kuugu jira hadduu markaa cimrigan gaadho oo 60 sano loo kaadiyo innaba wuxuu ku cudurdaarta heli maayo waa dhici kartaa qofkii markaa da'diisu yarayd oo qaangaadh ahaa laakiin dhowr iyo 10 jir ku dhintay inuu yidhaahdo dee wax badan ma noolayn yacni iyo wax la mida inuu yidhaahdo iyadoo aynay markaa waxa weeye ciqaab aynay ka baajinaynin mar hadduu qaangaadh ahaa waxna loo sheegay caqlina uu lahaa waxay ka baajinaysaa ma jirto laakiin waxaa laga tilmaamayaa cudurdaarkii waa loo sii kala fog yahay kan 60 sano noolaa ee cimrigaa dheer noolaa cudurdaarkii dee aad buu uga fog yaho wuxuu meesha ku cudurdaartaba ma hayo inuu iska hantaataca mooye wuxuu ku cudurdaartaba dee ma hayo muxuu intaasoo dhanba markaysa markaa qabanayey iyadoo weliba la ogsoon yahay ummaddan cimrigeedu inuu gaaban yahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuusu dalik cimriyada ummaddaydu waxaa loo jeedaa sida haalibkee tirada badan lehe waxay u dhaxaysaa 60 iyo 70 bay u dhaxaysaa bimacnaa haalibkoodu waxay ku dhintaan
badanku inta 60 iyo 70 u dhaxaysa 10 sano gudahood ay ku dhintaan. Nabi Maxamed baa ku dhinto 63 jir buu ku dhintay. Abubakar baa ku dhinto 63 jir buu ku dhintay. Umar baa ku dhinto 63 jir buu ku dhintay. Uthman isagu wuxuu ka mid ahaa min alqaliil wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Waxa yaraa cidda intaa ka tallowday oo intaa dhaaftay 70ka cidda dhaaftay ummadayda waa yar tahay marka loo eego inta in ka yar ku dhimatay inta kale waxay noqonaysaa qaliil. waxa 70ka dhaafa waa yar yihiin gaalibka intaa ku dhintaa laga tilmaamayo. Uthman isagu wuxuu ahaa min alqaliilo isaga cimrigiisu ugu dheeraaday yacni 80 iyo markaa siyaado ayuu gaadhay. cali isagu maba gaadhinba cimrigaas. cali ibn abi taalib isagu cimrigaa maba gaadhinbo yacni markaa cumrulghaalibkii kuma sinmin. marka maadaamay sidaas tahay da'daa qofkii noolaa cudurdaar uma hadhin, caqlina leh, digitaanna soo gaadhay. saas aawadeed waa inuu markaa hadduu cimrigaa gaadho si gaara waa inuu khayraadka ugu dadaalaa. iyadoo dadkaba laga wada rabo khayrka inay ku dadaalaan ayaa haddana markaa dadka cimrigan gaadhayna si gaara looga sii rabaa inay dadaalka badiyaan. waayo dee wuxuu markaa taagan yahay yacni xabaashii waa u sii dhowaaday. geeri qarkeed buu taagan yahay. yacni geeri qarkeed ayuu markaa taagan yahay, sida marka waxa weeye maluhu soo degdegaayo. mar walbana marka wuxuu u dhowaanayaa geeridii. waxaynu ka dhigannahay dad safar ku jiraynu ka dhigannahay oo socda oo maalin walba markaysaga markaa in dhaqaaqaya, in soconaya. waxaynu u soconaynaa xaggii ajashii, xaggii geeridii baynu u soconaynaa. yacni sannadkii hore iyo hadda isku inuma jirno, bishii hore iyo bishan isku inuma jirno, wiiggii hore iyo wiiggan isku inuma jirno, shalay iyo maanta geerida isku inuma jirno, saacaddii hore iyo saacaddan isku inuma jirno, daqiiqaddii hore iyo daqiiqaddan isku inuma jirno. haddaynu u dhowaansho badanna maadaamay sidaas tahay waa in khayrkii la fara badsadaa. xadiidka 118 athaani baabkana waa xadiidka labaad ee can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma. can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi ibni cabbaas qaala waxa uu yidhi kaana cumaru radia allaahu canhu yudkhilunii maca ashyaakhi badrin. cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu ahaa mid isoo geliya maca ashyaakhi badrin, yacnii odayaashii iyo shuyuukhdii beder ka qayb gashay markuu la tashanaayo ayuu anna igu soo dari jiray. cabdullaahi ibnu cabbaasna dee da'diisu waa yaray. markii nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam markaasuu ama uu qaangaadhay ama qaangaadhnimada qarka u saaraa. oo wuxuu cabdullaahi ibnu cabbaas yidhi waxaa markaa nebigu dhintay anigoo qaangaadhnimada ku dhowaaday. marka waxa weeye calaa kulli xaal da'diisu saasay u yareen. cumar ibnu khataab dee nebiga wuxuu ka geeri dambeeyey waxay ahayd yacni 2 sano iyo badh oo abubakar hayey iyo isagoo markaa 10 sano iyo bila hayey ama 10 sano. dee dhowr iyo 20kii hijiriga ayuu markaa u cumar la dilay. markaa dee inan yar oo dhallinyaro ah weeye wakhtigii cumar oo weliba da'diisu yar tahay. markaasuu intuu soo kaxeeyuu nimanka waaweyn ee beder ka qayb galay markuu la tashanaayo ayuu markaa u keeni jiray cabdullaahi ibnu cabbaasna oo ku soo dari jiray. faka'anna bacdahum wajada fii nafsi, waxaad mooddaa qaarkood yacni bacdi ka mida shuyuukhdii beder ka qayb gashay ka midii wajada fii nafsihi naftiisa inuu markaa cadho ka helay oo bimacnaa u cadhooday arrinkaa u wax ka gansaday. inanka yar maxaa laydinku keenayaa oo laydinku soo daraya? fa qaala wuxuu idhi bacdigaasi lima yadkhulu haada macanaa, kani muxuu noola soo gelayaayo yacni markaa taladiiyo nugula jiraa noola fadhiisanayaa. walanaa abnaa'un miluh, iyada oo ay noo sugnaadeen inama la midi xagga da'da, annaguba inama laaleeg waa leenahaye maxaa naloogu keenayaa inankan yar? riwaayaadka qaarkood waxaa lagu soo wariyey cidda hadalkaa tidhi inuu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf inuu ahaa. fa qaala cumaru, wuxuu yidhi cumar
innahu min xaysu calimtum innahu inankani min xaysu calimtum wuxuu ka ahaaday meeshaa garanaysaan yacni min beyti nubuwa gurigii nebinimada calayhi salaatu wasalaam ayuu ka dhashayoo dee waa qaraabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa nebiga ilaadeerkii ruma weeye markaa dee inamadiinna lama mid aha marka la eego maadaamuu aalkii nebiga sala allahu alayh wasalam uu yahay inamadiinna lama mid ahee dee waa ka mudan yahay taasi waa xagga markaa fadliga yacni aalnimada ama qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam marka laga eegaayo xaggaa fadligeeda waa sheegay fadacaanii daata yowmin gees kaluu haddana doonayaa fadligiisa inuu yacni markaa sheego xagga cilmiga midna waa xagga marka waxa weeye dhalashada uu ka dhashay qaraabadii nebiga uu yahay oo aalkii nebiga uu yahay oo min beyti nubuwa uu yahay ta labaadna waa xagga cilmigo wuxuu yidhi fadacaanii waa ii yeedhay ibnu cabbaas baa odhanaya cumar baa ii yeedhay daata yowmin maalin maalmaha ka mid uu ii yeedhay fa adkhalanii macahum waa ila soo geliyo nimankii waaweynaaye beder ka qayb galay buu ii keenay famaa ra'aytu ma ogi annahu dacaanii inuu ii yeedhay yowmaidin maalintaas ilaa liyuriyahum inuu tusiye mooyaane fadligayga mudnaanshahayga iyo cilmigayga inuu tusiye mooye wax kale inuu iigu yeedhay uma ogi ra'ada waxaa looga jeedaa cilmiyi liyuriyahumna liyuclimahum bay u dhacaysa qaala wuxuu uhi maa taquuluuna yagii buu su'aasha ku hormariyey wuxuu uhi maa taquuluuna maxaa ka odhanaysaan fii qowli illaahi tacaala ay fii macnaa qowli illaahi tacaala hadalka allah yidhi macnihiisa maxaa ka odhanaysaan min baabi xadfi lmudaaf macnaa baa la qadaraya idaa jaa'a nasrullaahi waalfatx yacni markuu yimaado nasrullaahi guusha ilaahay iyo gargaarka ilaahay iyo walfatxu furashadu markay timaaddo yacnii suuradda ayuu ishaaroo awalkeedii ayuu soo qaatay bacda albasmala muxuuna u jeedaa dee suuraddoo dhan fa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen qaarkood umirnaa waxaa nala amray oo nala faray naxmadullaaha inaannu allah mahadinno wa nastakfiruhu iyo inaannu dembidhaaf weydiisanno ay an naxmadahu wa nastakfirah idaa nasarana allaahu hadduu allah noo gargaaro wa fataxa calayna uuna marka waxa noo furo oo fatxigana na siiyo oo gaaladii aannu ka guulaysanno inaannu markaa ilaahay aanu mahadnaqno oo aannu dembidhaaf weydiisannaa nala amray sidaa daahirka ka muuqatay sheegeen wa sakata bacduhum qaarkoodna waa aamuseenoo falam yaqul shay'an waxba may odhan qaarna waa jawaabeenoo saasay yidhahdeen fa qaala lii wuxuu igu yidhi jawaabtuu doonaayey cid ka midoo sheegtay ma jirto fa qaala lii wuxuu igu yidhi haddaan ibnu cabbaas ahay akadaalika taquulu ya bna cabbaas ma sidaasoo kalead odhanaysaa ibnu cabbaasow fa qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu idhi famaa taquulu maxaad odhanaysa qultu waxaan idhi ibnu cabbaas baa odhanaya cabdullaahi ibnu cabbaas cabbaas inamo badan buu dhalay laakiin oo 10 inan buu dhalay laakiin ibnu cabbaas haddii la itlaaqo cabdullaahi bay ku dhacaysa yaa fadli iyo qusam iyo inamada kale u dhalay yacni kuma dhacayso isagoo 10 inan leh haddana ibnu cabbaas haddii la itlaaqo waxay noqotay calamun bilghalabay ku noqoto waxay u badatay uun cabdullaahi ibnu cabbaas in loo jeedo marka calamun bilghalaba wax la yidhahdaa jira waa saas wey fa qaala lii wuxuu igu yidhi akadaalika taquulu ya bna cabbaas faqultu laa qaala famaa taquulu maxaad odhanaysaa buu igu yidhi qultu waxaan idhi huwa ajalu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam waa nebiga ajashiisii iyo geeridiisii baa la sheegayaa inuu nebigu dhiman doono calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegaya aclamahu lahu allah waa ogeysiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam lahu liajalihi ajashiisii buu ogeysiiyey oo bimacnaa hadday saasi dhacdo waa calaamaddii geeridaada in laga tilmaamaayo waa sii caddeeyey qaala wuxuu yidhi idaa jaa'a nasrullaahi waalfatx macnuhu wuxuu u dhacayaa markuu yimaado nasrullaahi ilaahay guushiisu waalfatxu iyo furashadu markay timaaddo wadaalika calaamatu ajalik macnuhu wuxuu u dhacayaa taasi waxa weeye waa calaamaddii geeridaada ka soo horraysay weeyaan ajalika khata' matbaciya ku dhacayoo kaafku hoos dhigay laakiin sida saxani waxa weeye kaafka waa in la kor dhigo nuskhada kolle aan hayo yacni markaas sabqu waxaa ku dhacay yacni khata' matbaci ah wadaalika calaamatu ajalik yacni ajashaadu calaamaddeedii weeye geeridaada calaamaddii ka soo horraysay weeye fasabbix bixamdi rabbika wastakfirih fasabbix tasbiixso oo ilaahay markaa nasaho xumaan ka dheeree ku ammaan inuu ka dheer yahay xumaan
bixamdi rabbika mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso xaalaad markaa ku dheehan tahay ama xaalaad ku lamaanaynayso wastakfirhu ilaahay dembidhaaf weydiiso innahu kaana tawaaba innahu allah kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid toobad aqbal badan buu allah ahaaday faqaala cumaru radia allaahu canhu markaasaa cumarna wuxuu yidhi maa aclamu minha kama ogi ilaa maa taquulu waxaad odhanaysaoo sheegtay mooyaane maa taquulu bimacnaa ay maa qulta waxa aad sheegtay mooyaane wax kale anna kama ogi sidaa aad u sheegtaan anna markaa u qabaa inay tahay rawaahu albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa fadliga ibnu cabbaas baa xadiiskan laga qaadanayaa oo inuu laba geesood baa fadli ku lahaa gees waa xagga markaa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa xaggaa wuxuu ku lahaa fadli gees kalena waa xagga cilmigana dee nebigaa ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka barakadii ducada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka muuqatay oo nebigu wuxuu ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahu diinka fahansii ta'wiilkana bar ilaahu diinka fahansii ta'wiilkana bar ducadaa waa loo aqbalay saas aawadeed wuxuu ahaa markaa yacni aad buu u cilmi badnaa qur'aankana aad buu ugu sii aqoon badnaa mar baa la weydiiye oo lagu yidhi maxaad ku gaadhay yacni cilmigan wuxuu idhi bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul waxaan ku gaadhay carab su'aal badan iyo qalbi weelayn badan ijtihaad badanna waa la yimi aad buu u dadaalay inan ansaarta ka mida ayuu wuxuu ku yidhi oo ay isku fac ahaayeen hadda saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa tiro badan yihiinoo waa joogaan inaynu ka faa'iidaysanno sow maaha oo cilmiga baranno in laynoo baahdaa laga yaabaaye markaasaa dabeedna wuxuu ku yidhi layaab baa kuu sugnaaday ibnu cabbaasowe yaa kuu baahanaya adiga yaa inoo baahanaya inankii kale markaa dadaalkii lama iman waan iska dadaalay buuhi waxaan samayn jiray buuhi saxaabada ansaarta ayaan guryahooda ayaannu hortegi jiray buuhi dabeedna waxaan iska fadhiisan jiray buuhi bannaanka markaysagaa debadda oo halkaas dabaysha iyo yacni marka ay ugu dhacayaan waxaan sugayaa inuu salaadda casar marka u soo baxo aan sii raaco dabeedna intaa aan su'aala ka gaadhsiiyo markuu hadhow soo baxo casarka u soo baxo ayuu igu naxaa buuhi markaasuu maxaa ku keenay maad marka waxa weye ii yeedhid anaa ku iman lahaaye yacni ixtiraam uu markaysaga qaraabada nebiga sala allahu alay slam ay ixtiraamayaan daraaddeed maad ii yeedhid may waxa weeye waxaan aniga taaliba anaa wax doonaya aniga ayaa wax doonaya haddaan markaa ku garaaci lahaa buu yidhi waa i soo dhowayn lahaa laakiin waxaan doonayay inaanu markaa wax dhibisa aanan ku samayn aan karaahiye iyo dhibis iyo waxaasi ayna ka iman baan doonayey wuxuu sugayay ilaa intuu soo baxayo walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum wuxuu ku dhaqmayey yacni marka waxa wayaan aayaddaas in la sabro ilaa inta uu u soo baxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam baa khayr u lahayd inay u yeedhaan oo markaysaga debadda ka dhawaaqaan nimankii reer miyiga ahaa ay yidhahdaan maxamedow noo soo bax aayaddaasi waa tii ku soo degtay tiibuu waxaa markaa u fahmeen yacni marka ahlucilmigu in waxa weeye ciddii yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii haysay oo la doonaayo cilmiga in laga faa'iidaystana saasoo kale in loo ixtiraamo oo aan la iscaajin oo aan marka waxa weeye markaa la dhibin yacni markaa taasay marka waxaweye ka qaateen saas aawadeed markaasaan dabeedna marka waxa markuu ii soo baxo aan su'aasha weydiin jiray buuri marka dadaal badanna waa la yimi barakadii ducada nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ka muuqatay cumar markuu doonay fadligiisa xagga cilmiga inuu markaa u tuso toos su'aashii markiiba isaga ma weydiin oo sida mudnaanshaha cilmi ee uu leeyahay u muuqato ayuu markii hore su'aasha iyaga ku hormariyey markay su'aashii qaarkoodna ka gaabsadeen qaarkoodna sidii marka waxa weeye macnihii ziyaadada ahaa ee laga fahmaayey aan daahirka ka muuqanaynin aan aayaadka sariixa ku ahayne ku caddayn ee istimbaadka u baahnaa markii waxa weeye cid ka midii sheegi weyday ayuu ibnu cabbaas weydiiyey oo markuu ibnu cabbaas weydiiya ibnu cabbaas sheegay halkaana waxaa muuqatay fadliga uu ka leeyahay xagga cilmiga ayaa muuqatay marka dee haddii xaggii qaraabada nebigu in aalkii nebiga uu yahay oo baytu nubuwa ka dhashay iyo inuu xaggii cilmiga ku mudan yahay labadaba markay muuqatay macno loo diidaa meesha ma jiro inama aan la mid ahayn xagga cilmiga iyo xagga fadligana in lala tartansiiyaa ma imanayso
in lala tartansiiyaa ma imanayso. taasna waxaa laga qaadanayaa marka cid lala shawraayo cidda ahlulfadliga in lala shawro. cumar ibnu khataab wuxuu la shawri jiray dadka yacni raggii beder ka qayb galay ayaa fadliga ay leeyihiin daraaddeed iyo saabiqada ay leeyihiin ayuu ula tashan jiray oo ula shawri jiray. laakiin yacni qof markaa saasoo kale ku soo daraa waa jiri jirtay, sidaa ugu soo daray cabdullaahi ibnu cabbaas ugu soo daray. marka waxaa laga qaadanayaa cidda markaa fadliga leh in la ixtiraamo oo fadligooda la muujiyaa laga qaadanaya. cid markaa da'doodu yar tahay haddii markaa fadli siyaada a leedahayna fadligooda in la tanwiihiyo sare loo qaado lagu ammaano ayay noqonaysa, si waxa weeye markaa dadka kalena ay ugu daydaan, isaga laftiisana ay ugu noqoto inuu markaa waxa weeye yacni uu dadaalku si u sii kordhiyo oo u sii siyaadiyo in lagu ammaano oo fadligiisa la muujiyo ayaa taana laga qaadanayaa. waxaa kaloo aayaadkan laga daliishanayaa aayadaha macno aan markaa sariix ku ahayn oo dalaaladda alfaadda yacni markaa aan ku caddayn oo siyaadaha in macaanida qur'aanka laga istimbaado, aan daahirka markaysa waxa laqbada bes aan lagu kaaftoomin, laakiin macaanida istimbaadka loo fiirsado oo qur'aankii lagu tadabburo. ila qur'aanka waxaa loo soo dejiyey tadabbur. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab. maqaasidda loo soo dejiyey qur'aanka waxaa ka mid ah waa si macaanidiisa loogu fiirsado tadabbur loola yimaado, yacni maqsuud wey. yaa 4 aayadoo qur'aana 4tuba ku soo arooreen tadabburka. marka tadabburkii qur'aanka lagu tadabburayay baa macaanida noocaasoo kale ka soo baxaysa. waxaa kaloo laga qaadanayaa tasbiixda iyo xamdinaqa iyo istikfaarka saddexdaas in la ysku daraa inay tahay markaysaga mid aad iyo aad yacni markaa u fiican. waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi haddaba cibaadada badso maxaa la amray? sunnaha uu farabadsanaya aadka ula imanaya waa maxay? waa inuu tasbiix iyo taxmiid inuu markaa ilaahay u tasbiixsado, u xamdi noqo, dembi dhaaf weydiisto. intaa waa inuu la yimaado, sida axaadiiska soo socdaba inoo sheegayo. axaadiista soo socotaa subxaanaka allaahumma rabbana wa bixamdika allaahumma ighfir lii iyo subxaanaka rabbana wa bixamdika allaahumma ighfir lii. yacni waxa weeye fadli weyn baa ku sugan. sidaas aawadeed waa in dikrigaas aad loo badiya. halkaa inoogu joogo. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk. intaynu ku kulmayno fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online.